بينها مامورك gobolka Gado بلد حاو Gado Jubbaland Soomaaliya taariikhduna ay tahay 31 bisha 8 2020 shirweynaha wadatashiga maamulka gobolka Gado oo markii ugu horeysay ku qabsoomay magaalada ganacsiga ee Balad Xaawo intii u dhaxaysay 26 ilaa 30 Agoosto 2020 ayaa waxaa ka soo qayb galay siyahayaha wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen gudoomiyaha gobolka Gado Ismaan Nuux Xaaji Macalimo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Gado Maxamed Cali Xuseen Diini gudoomiye ku-xigeenka labaad ee maaliyadda Nasteex Cabdi Saalax iyo madaxa arrimaha bulshada ee gobolka Gado Ibraahim Maxamed Buumo shirweynaha waxaa kale oo ka soo qayb galay gudoomiyeyaasha ku-xigeenada iyo madaxda maaliyadaha degmooyinka oo ay weheliyaan gudoomiyeyaasha deegaanada Yurkud Boholgaras iyo Geedweyne shirka waxaa qayb weyn ka ahaa saraakiisha amniga sida taliyaha guutada tobanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Maxamed Cabdo Cali Sanka taliyaha xasilinta gobolka Gado Cabdiraxmaan Cabdullaahi Aadan Bakaal Kooke iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka Gado Cabdiqaadir Cumar Biixi muddadii uu shirku socday waxaa talooyin ku soo kordhiyey qaar ka mid ah siyaasiyiinta odayaasha haweenka iyo dhalinyarada gobolka Gado ee ku sugan Balad Xaawo shirka oo qaatay muddo 4 maalmood ah waxaa diiradda lagu saaray ajandaha oo ka koobnaa amniga dhaqaalaha siyaasadda arrimaha bulshada iyo maamul wanaagga waxaa ka soo baxay go'aano masiiri ah qodobka koowaad amniga ayadoo laga duulayo muhiimadda nabadgelyadu u leedahay bulshada gobolka iyo dowladaha dariska ee xadka la wadaaga gobolka ayaa wuxuu shirku ammaanay horumarka ay hay'adaha amniga ka sameeyeen nabadgelyada guud gaar ahaan natiijada baaritaanadii laga sameeyey dhacdooyinkii u dambeeyey waxaa la go'aamiyey kow in si mas'uuliyadi ka muuqato loo sii adkeeyo amniga gudaha magaalooyinka iyadoo wada shaqayn dhow lala yeelanayo qaybaha bulshada labo in maamulka iyo saraakiisha gobolka oo iskaashanayo ay u diyaargaroobaan howlgallo ballaaran oo kooxaha nabadiidka looga sifaynayo guud ahaan gobolka si meesha looga saaro caqabadaha jidgooyooyinka gobolkuna u noqdo meel ka caagan argagixiso iyo cadow kaste oo khatar ku ah jiritaanka qarannimada Soomaaliya saddex in maamulka iyo saraakiisha amniga gobolku iyagoo kaashanaya dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM in ay u diyaargaroobaan howlgal lagu xoreynayo caasimadda Jubbaland ee Bu'aale qodobka labaad ee shirka dhaqaalaha shirweynuhu wuxuu aad u gorfeeyey horumarka laga sameeyey iyo caqabadaha ku xeeran kobcinta dhaqaale ee gobolka sida dhiirigelinta wax soo saarka qaybihiisa kala duwan iyo kor u qaadidda ururinta dakhliga canshuuraha gudaha waxaa doodeed iyo falanqayn kadib uu shirku ka gaaray go'aamada kow shirku wuxuu go'aamiyey in maamulada degmooyinku ay dhaqangeliyaan siyaasadda dhaqaalaha gobolka lagu jaangooynayo taasoo saldhigeedu yahay isla xisaabtan maarayn iyo midayn guud ahaan dhaqaalaha gobolka ka soo xarooda labo waxa uu shirku isla gartay taabagelinta 2 sanduuq dhaqaale sanduuqa koowaad oo ah mid guud oo lagu ururiyo dhaqaalaha ka soo xaroodo degmooyinka gobolka iyo sanduuqa labaad oo lagu ururinayo dhaqaale loogu talagalay horumarinta arrimaha bulshada iyo ka jawaabidda musiibooyinka dabiiciga ah saddex shirweynuhu wuxuu soo bandhigay qorshe cad oo lagula xisaabtamayo madaxda maamulada degmooyinka waxaana la isla qaatay in cadaaladda la horgeeyo cid kaste oo lagu helo musuqmaasuq iyo xatooyo xoolo dadweyne afar shirku wuxuu ganacsatada Soomaaliyeed iyo maalgashadayaasha caalamiga
ugu baaqayaa inay ka faa'iidaystaan fursadaha maalgashi ee gobolka ee uu eebba ku manaystay iyo khayraadka kala duwan ee dabiiciga ah. qodobka saddexaad ee shirka siyaasadda. kow, shirweynuhu wuxuu walaac ka muujiyey qulqulatooyinkii siyaasadeed ee ka dhashay doorashadii uu sida sharci darrada ah madaxweynihii hore ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu sanadkii tagay Kismaayo isugu caleemo saaray. shacabka ku dhaqan gobolka Gado qaybahooda kala duwan waxay coddeeda ku sheegeen in doorasho xor iyo xalaal ah oo shacabka hoggaankii matali lahaa ku soo doorto markaste oo maamulka xilligaa jira waqtigiisu dhammaado ay tahay xuquuq asaasi ah oo aysan sinaba uga tanaasuleynin. sidaa darteed maamulka gobolka Gado wuxuu isagoo ka turjumayo rabitaanka shacabka ku dhaqan gobolka uu dowladda federaalka ah iyo beesha caalamka ku wargelinayaa in gobolka Gado uusan siyaasad, maamul, amni iyo arrimo bulsho intaba u hoostagin maamulka Axmed Madoobe uu sida sharci darrada ah Kismaayo iskiisa uga yagleelay. wuxuu maamulka gobolka Gado ilaa iyo inta laga helayo maamul ay si xor iyo xalaal ah dadka reer Jubbaland ku soo doortaan sii wadi doonaan gudashada howlaha u yaallo oo ay ka mid yihiin ka shaqaynta arrimaha amni, siyaasad, dhaqan-dhaqaale ee lagama maarmaanka u ah nolosha shacabka ku dhaqan gobolka Gado si ka madax bannaan maamulka sida sharci darrada ah Kismaayo looga yagleelay. labo, shirweynuhu wuxuu soo dhawaynayaa go'aankii Samareeb 3 ee qeexayay in doorashada dalka noqoto mid loo daadajiyo heer deegaan doorasho lana kordhiyo tirada dad ee kursigiiba dooranaysa. maamulka gobolka Gado wuxuu isagoo kaashanayo hay-adaha kala duwan ee gobolka fududaynayaa hirgelinta xanaanka doorasho ee heer federaal. 3, maamulka gobolka Gado wuxuu xog ogaal u yahay qorshe guracan oo kuraas ka mid ah kuraasta baarlamaanka ee heer federaal ee deegaan doorashadoodu ahayd gobolka Gado loogu wareejinayo deegaan doorashooyin kale sida Kismaayo. maamulka gobolka Gado wuxuu iyadoo la tixgelinaya ahmiyadda ay leedahay xuquuqda matalaadda ee muwaadinka Soomaaliyeed uu guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ugu baaqayaa in kuraastaas deegaan doorashooyinkoodii la hareermariyey dib loogu soo celiyo gobolka Gado oo ah deegaan doorashooyinkoodii saxda ah. qodobka afaraad ee shirka arrimaha bulshada iyo maamul wanaagga. si loo helo maamul iyo bulsho midaysan oo ka wada shaqaysa horumarka gobolka, shirku wuxuu isla qaatay siyaasadda midaynta ururada bulshada rayidka ah. iyadoo laga ambaqaadayo qadiyadan ayuu shirku bogaadiyey tallaabadii ugu horreysay oo ay suxufiyiinta gobolka Gado ku samaysteen urur ay ku midaysan yihiin oo ka shaqeeya danahooda. shirweynihii ay ku qabsadeen degmada Doolow muddadii u dhaxaysay 15 ilaa 17 Agoosto 2020. 2, shirweynuhu wuxuu isla qaatay muhiimadda ay horumarka gobolka Gado u leedahay dhismaha golayaal deegaan oo ay shacabku soo doorteen. tallaabadan oo qayb weyn ka ah baahinta xukunka iyo maamul wanaagga ayaa shirku wuxuu dowladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka ka codsanaya inay taageero farsamo iyo mid dhaqaale la garab istaagaan fulinta qorshaha. qodobka 5, baaq. 1, shirweynuhu wuxuu isimada, oqaasha, aqoon-yahanada iyo waxgaradka kale ee reer Puntland ee xurmada iyo sharafta leh ugu baaqayaa in madaxda Puntland ka waaliyaan ficilada guracan iyo faragelinta qaawan oo had iyo gooraale ka dhex wadaan shacabka reer Jubbaland, kuwaas oo sii hurinaya xurguf siyaasadeed ee Jubbaland ka dhex aloosan, siina kala fogeynaya shacabka walaalaha ee reer Jubbaland. bulshaweynta reer Jubbaland oo kaliya ayaa xaq u leh xallinta khilaafaadka siyaasadeed ee dhexdooda ah. 2, maadaama aysan hadda jirin maamul Jubbaland oo la isku raacsan yahay,
shirweynuhu wuxuu beesha caalamka iyo dowladda federaalka Soomaaliya ugu baaqayaa in aan Kismaayo kaliya la geynin deeqaha caalamku oo ku bixiyo magaca Jubbaland waxaana shirku uu dalbanayaa xaquuqaha horumarin iyo bini'aadamnimo ee gado leedahay in lagu simo gacanta maamulka heer gobol. 3 shirku wuxuu shacabka gobolka ugu baaqayaa in ay ku kalsoonaadaan maamulkooda wada shaqayn downa la yeeshaan hay'adaha amniga waxa kale oo shirku ka codsanayaa qurba-joogta reer Jubbaland inay taageero dhaqaale la garab istaagaan shirweynaha ayaka tashiga Jubbaland ee dhawaan ka furmi doono xarunta gobolka Gado ee Garbaharey. 4 shirweynuhu wuxuu jaaliyadaha dibadda ee gobolka Gado ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan horumarka deegaanka maalgashadaan ilaha dhaqaalaha ee uu gobolku hodanka ku yahay. maamulka gobolka Gado isagoo ka duulayo siyaasadiisa kobcinta dhaqaale ee heer gobol ayuu maalgashatada kala duwan ee u damaanad qaadaya in ay helaan amni iyo xorriyad ay howlahooda ku fashadaan si waafaqsan shuruucda dalka. 5 maamulka gobolka iyo saraakiisha amniga waxay cafis u fidinayaan dhalinyarada la marin habaabiyey ee ku sugan xero ku taalla Mandera Kenya waxayna cod dheer ugu baaqayaan in ay ka faa'iidaystaan fursadda cafiska ah ee loo fidiyey si nabadgelyo ahna ugu soo laabtaan deegaankooda. qodobka 6 ee shirka mahadcelin. 1 shirweynuhu wuxuu u mahadcelinayaa dowladda federaalka Soomaaliya kaalintii ay ka qaadatay horumarinta arrimaha bulshada iyo kaabayaasha dhaqaale ee gobolka Gado sida dayactirka buundada Baardheere hirgelinta mashaariicda waxbarasho ee kala duwan iyo ka jawaabista masiibadii fatahaadda webiga Jubba oo gobolka Gado u geystay. 2 shirweynuhu wuxuu uga mahadcelinayaa guddiyadii isxilqaamay ee ka koobnaa qurba-joogta Soomaaliyeed hay'adaha samafalka sida Ar-Raxma iyo cid kasta oo kale doorkii ay ka qaateen gurmadkii fatahaadda webiga Jubba gaar ahaan masiibadii waxyeelaysay nolosha qoysas badan oo ku dhaqan gobolka Gado gaar ahaan degmooyinka Baardheere iyo Doolo. 3 shirweynuhu wuxuu maamulka iyo shacabka aanu walaalaha iyo dariskaba nahay ee Mandera Kenya uga mahadcelinayaa sidii geesinimada lahayd ee ay uga hortageen abaabulkii qorshaysnaa ee eedeysane Cabdirashiid Janan iyo kuwii Kismaayo iyo Nairobi ka soo diray isugu dayeen inay colaad baahsan ka horiyaan ismaamulka deegaanka Mandera iyo gobolka Gado. 4 ugu dambeyn shirweynuhu wuxuu u mahadcelinayaa hay'adaha amniga iyo guddiyadii kale ee kala duwanaa ee suurageliyey in shirweynuhu uu u dhaco si habsami leh sida guddiga qabanqaabada farsamada saxaafadda iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Balad Xaawo oo u dhabar adeegay in ay martigeliyaan inta uu shirka socday. wabillahi tawfiiq.